jaaliyadda Soomaalida Minnesota ayaa si wada jir ah ugu soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Cumar Faaruq oo maanta ka soo degay garoonka caalamiga ah ee Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota. wasiirka oo booqasho gaaban ku soo gaaray gobolka Minnesota ayaa lagu wadaa in uu la kulmo qaybaha kala duwan ee jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida. haddaba dadkii soo dhaweeyay wasiirka oo la hadlay Nabad TV hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa Bismillahir Rahmanir Rahim ma sha Allah dhammaan bulshada aadka u quruxda badan ee mudane iyo marwooyin bale aad baan idin salaamaynaa waan ku faraxsanahay soo dhaweynta quruxda faraha badan ee aad u muujiseen walaalkeen mudane wasiir Cumar Faaruq Xaaji aad iyo aad baad u mahadsantihiin mudane wasiirkana waxaan leenahay mudane wasiir ku soo dhawow dadkana waa dadkaagii gacmo furan ku soo dhawow dad aad iyo aad u fara badan ayaa airportka isugu yimid oo soo dhaweyntaada u haweyn mudane soo dhawow waxaan joognaa airportka Minneapolis waxaan soo dhaweynaynaa wasiirkanaga Cumar Faaruq waxaan leeyahay soo dhawow soo dhawow dad aad ku jecel baa jooga waxaan leenahay soo dhawow wasiirkanaga Cumar Faaruq annagoo ah shicibkii ugu horeeyay maartan soo booqdo farxad gooniye noo tahay mudane Cumar Faaruq inaad noo timaado oo dadkaagii iyo shacabkaagii aad u timaado gacmo furan ku soo dhaweynaynaa waan ku xiisaynaynaa warar badan baa nagala ka jira warka hadalka ma badinayo soo dhawow ku soo dhawow airportka waxaan ku raadayay deegaanka Soomaalida meesha ugu badan ee dadkiisu qurbaha ka jooga weeye marka si wanaagsan baan ku soo dhaweynaynaa insha Allah taala gacmo furan ku soo dhawow aad iyo aad baan yaan ugu runtii ninkii siyaasiga lagu qaabilay waa nin tagay oo kale marka waa New Hampshire tanada New Hampshire waxa la yiraahdaa magaalooyinka Mareykanka lagu tijaabiyo madaxweynaha haday qaadato uu qaadno weey marka soo dhawow dawladdan cusub intaan aanu ka warayo waa ninkii koobaad ee arko Cumar Faaruq wasiir ku-xigeenka madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida halkan wasiir waxa ku dhan jaaliyadii Minnesota hogaamintii culimadii aqoon-yahankii iyo dhammaan qaybihi kala duwan ee jaaliyadda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu halkan kugu soo dhaweyno wixii sheeko iyo kaftani iyo waad gadaal hadda waa airportkii soo dhaweyntii soo dhawow aan ku leenahay dadkanu aad bay u faraxsan yihiin u soo dhaweynaa wasiirkeenna Cumar Xuseen Xaaji Warfaa oo runtii nasiib aan u yeelannay inaynu inoogu yimaado magaaladeennii waan ku faraxsannahay wasiir soo dhawow dadkaaga oo ku jecel qalbi kugu soo dhaweyn wanaag iyo Assalaamu calaykum anigoo ku hadlaya magaca Somali Community of Minnesota waxaan leeyahay wasiir Cumar Faaruq ku soo dhawow magaalada ku soo dhawow gobolka Minnesota gacmo furan qalbi dhanka kale waxaa saxaafadda la hadlay wasiir ku-xigeenka madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Cumar Faaruq oo ka warbixiyay socdaalkiisa isagoo si gaar ah ugu mahadceliyay jaaliyadda Soomaalida waan ku isu xog waramaynaa soo dhaweyntan tadana waxay runtii tahay maan reeb waxay ugu tahay xusreeb waa waxaan filanayay waayo goobtan tada Soomaalida degan ee deegaanka ka soo jeeda ayaan garanayaa waxaan kaloo dareemaysanahay in gurigiisii labaad hadduu kii koobaad ba ahayn in joogaan inaan ahay marka waan idin mahadnaqayaa soo dhaweynta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay insha Allah waxyaabihii dambe ee waraysigana kulamada dambe bay inoo noqon doonaan aad iyo aad mahadsantiin Asmar Cabdi Nuur Nabad TV Minnesota.